الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إلهي فضله تبارك وتعالى وحين كسر دواني وإن كسر آدم وأن قابل صنعي توانكي بشر رمضان قدام بيسي وبشا ruuxeedii waay waa bisha khulaasadeedii waay waa meeshii ugu muhiimsanayd bisha habeenadeeda iyo waqtiyadeeda kala duwan waa meeshii nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu dadaalka siyaadada ku bixin jiray leanna waxa way tobankan dambe bisha inteeda kale way ka fadli badan yihiin wanaagga iyo khayrka la sameeyana la mid ma aha waqtiyada kale, xataa bisha inteeda kale la mid ma aha. waa waqtigii marka dadka ahlul khayrka ay tartami lahaayeen, waa waqtigii ganacsatada aakharo ay sahay qaadan lahaayeen oo ay faa'iido raadin lahaayeen, waa waqtigii aan juhdiga iyo dadaalka gelin lahayn. waxaa ku filan tobanka dambe fadli waxaa ugu filan in ay ku jirto habeenka laylatul qadriga. habeenkaasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka uu ku sheegay fadaa'il fara badan. qur-aanka kariimka buu ilaahay soo dejiyey oo u dooray inuu soo dejiyo. habeenkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay camalka la sameeyo inuu ka fadli badan yahay 1000 bilood oo ayadu ayna ku jirin 83 sano iyo ziyaado way. habeenkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay habeen barakadeed iyo khayrkeedu badan yahay, layla mubaaraka. wuxuu ku tilmaamay arrin kasta in la kala saaro oo ay culimmadu ku fasireen sanadkaas soo socda waxyaalaha dhacaya diiwaanka weyn ee looxul maxfuudka inta laga soo qaadaa la soo dejiyaa oo la soo fasliyaa. malaa'igtaasi habeenada kale ka badan u soo degayso malakul jibriil la jiro. waa habeen nabada buu ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaa waagu ka baryay. habeenkaasi nabigeennu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuu baadi goobay bishoo dhan buu ka baadi goobay. tobanka horuu nabigu ictikaafay isagoo raadinaya habeenkaas, tobanka dhexuu haddana ictikaafay isagoo raadinaya. markaasaa waxaa lagu yidhi tobanka dambay ku jirtaa. tobanka dambuu nabigu yidhi sal alay wasallam marka ka raadiya, halkaa ku dadaala, gaar ahaan habeenada tirada isdhaafka ka raadiya ku dadaala buu nabigu yidhi sal alay wasallam, gaar ahaan habeenka 23aad buu rasuulku yidhi sal alay wasallam. laakiin culimmadu say leeyihiin axaadiista ku soo aroortay si laysu waafajiyo waxay leeyihiin macnaha saxdii waxa weeye in sanadba ilaahay meel gelinayo, meelay ku jirto ma taqaanid marka. saas daraaddeed baa nabigeenna laga qariyey sal alay wasallam si ay ummaddu khayrka u badsato, habeen kastana u filato inay laylatulqadri tahay oo markaasi ay taacada u badsadaan. nebiga waa loo sheegay kadibna waa laga qariyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. habeenkaasi tobankan dambuu ku jiraa. tobanka dambe waa gebagabadii iyo khatimkii iyo sagootiskii bisha wey, waa sagootiskii. nabigeennuna wuxuu leeyahy sal alay wasallam acmaashu waa khatimka waay. maxaad ku khatimtay bishii haddaad soo dadaashay? maxaad ku gebagabaysay oo kuugu dambeeyey? cimrigaaga haddaad dadaashay maxaa kuugu dambeeyey? cimrigu muxuu u dambeeyey? maxaa camal kuugu dambeeyey muxuu ahaa? alumuur bilkhawaatiib. khaatumadu waa muhim. sidaas daraaddeed inuu dadaalkeennu bato, juhdigeennu bato, innagoo nabigeenna maxameda ku dayanayna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. kaana yajtahidu fi alcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fii hayriha. tobankan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin habeenno kale iyo wakhtiyo kale toona. waa la sii faahfaahiyey nebigu sal alay wasalam acmaashuu samayn jiray. wixii uu soo waday acmaal khayrana wuu sii labanlaabi jiro, wuu siyaadin jiray. laakiin si gooniya waxaa farta loogu fiiqay xadiidka saxiixaynka ku yimid xadiidi caaisha. waxay leedahay nebigu sal alay wasallam tobanka dambe ee ramadaan hadday soo galaan nebigu sal alay wasallam axyaa laylahu, habeenkiisa waa noolayn jiray. wa ayqada ahlahu, ehelkiisana waa toosin jiray. wa shadda mi'zarahu, guntigana waa adkaysan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. habeenkiisuu noolayn jiray, bimacnaa ilaahay cibaadadiisuu habeenka intiisa badan ku qaadan jiray nebigu sal alay wasallam. waxay culimmadu leeyihiin cibaado oo dhan waa nolol
wakhtigay nolol u tahay oo zamankiibay nolol u tahay oo makaankiibay nolol u tahay oo quluubtay nolol u tahay cibaadada iyo dikrigu waa nolol la'aantiina waa geeri saas daraaddeed baa nabigeenu sal alla alay wasallam xadiidka fi saxiixi muslim wuxuu yidhi guri ilaahay lagu xusay iyo guri ilaahay aan lagu xusini waxay ka dhigan yihiin meyd iyo noole oo kale bakhti iyo mid nool oo kale qur-aankana waa ka ilaahay noogu sheegay dadka qalbigooda iimaanka iyo dikriga ilaahay uu ku jiro ilaahay wuxuu ku tilmaamay dad nool gaalada iyo munaafiqiinta qalbigooda uu dikriga iimaanku ka maqan yahayna bakhti buu ilaahay ku tilmaamay wamaa yastawi alaxyaa'u wala alamwaat sidaas daraaddeed nolosha qalbiga iyo nolosheeda rasmiga sideedaba waxa weeye waa ilaahay daacadiisa iyo cibaadada iyo iimaanka iyo khayrka nolol ah habeenkiisuu noolayn jiray nabigu sal alla alay wasalam waxay leeyihin culimmadu lagama qaadanayo inuu habeenka o dhan soo jeedi jiray mana diidayso wakhti kooban inuu ruuxu nasto oo yaro seexdo maxaa yeele caaisha nebiga waxay ka warinaysaa kamaa fii sunan الnisaa'i waxay leedahay nebigu sal alla alay wasalam weligay ma arkin asagoo qur'aanka hal habeen ku wada akhriyey mana arkin bay tihi isagoo habeen dhan soo jeeday ilaa waagu ka baryey ma arkin bay tihi asagoo bil kaamila soomay oon ramadaan ahayn weligay ma arkin bay tihi oo yaa ka khabiirsan oo uga xogaalsan nebi maxamed cibaadadiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faqiihadda umulmu'miniina caaisha radia allahu tacaala canhuma iyo ummahaatu lmu'miniin lianna nebiga cibaadaadkiisa nawaafishiisa ayaga cid uga xogogaalsanaa ma jirin saas daraaddeed waxay leedahay habeen dhan nebigu ma soo jeedi jirin yacni wax yar buu yaro nasan jiray kadibna cibaadada ilaahay buu u istaagi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh axyaa leyla habeenka marka waa in la nooleeyo وأيقظ أهله أهل كيسنا وتوسين شر النبي صلى الله عليه وسلم ضبيعات سيدة ضبوا وحاؤها هاي سنة كإنتي سكلابا مركو النبي صلى الله عليه وسلم هبينكي تكنيو إنو ريريه سكعيو حاسسك كعيو دادك قوليك تشوغك كعيو سي أيقنا فرصدي يشانسك وقفا إيديستان صحيح البخاري وحاكوسك النبي صلى الله عليه وسلم هبين نبدا كم يدهور دادا كسو بودي سوى أرقك أحسن النبي صلى الله عليه وسلم بركاسو وحده سبحان الله عاوى محافيتا لسودتشي maxaa khazaa'in la soo dejiyey iyo khasnado war dumarka qolalka jiifayaa kiciya man yuuqidu sawaaxiba alxujuraat dumarka qolalka jiifayaa kiciya badanaa haweeney adduunka markay joogto mara qabta aakharana qaawan buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal wuxuu yidhi allah u naxariisto nin habeenkii kacay oo tukaday oo xaaskiisa kiciyey oo hadday kici weyday biyo ku saydhay allah u naxariisto haweenay tukatay habeenkii kacday tukatay ninkeeda kicisay hadduu kici waayena biyo ku saydhay waa qoys isu kaalmaysanaya khayrkii taacad calashaani dumarka keliya meehe carruurta wixii xamili karoo dhan in laga qaybgeliyo oo cibaadada loo kiciyo hadyigii nebigeennu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayqada ahlah arrinta saddexaadii shadda mi'zara guntiguu adkaysan jiray culimmada waxay ku fasireen dumarka iyo gogoshooduu ka fogaan jiray galmaduu ka fogaan jiray tobankaa beri leanna ictikaaf buu geli jiray ictikaaf iyo dumarna isma laha walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid hadduu ruux marba ictikaafsan yahay dumar laysma yaqaano sidaas daraaddeed dumarka waa ka fogaan jiray sunnadiisay ka mid ahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh tobanka dambe hadday soo gasho inuu nolosha dhan intuu ka dhex baxo oo masaajidka dhexdiisa teendhayar ka dhisto halkaa inuu galo oo inuu hawl muhim ah u soo baxa mooye uusan bixin xidhiidhka rabbigii calaaqaadkan iyo irtibaataadkan iyo xidhiidhkan iyo mashaaqishan adduunyada uu soo xidho lianna muddadaa kooban yuu doonayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh qalbigiisu inuu xidhiidhka rabbigii adkeeyo saas daraaddeed buu ictikaafi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa intuu ka geeriyoonayena wuu ictikaafayey madiine markuu tegey soonka lagu waajibiyey laga bilaabo ilaa geeridiisii nebigu ictikaaf kama tegin salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna dumarkiisii iyo xaasaskiisii iyo saxaabadiisiiba ictikaafkii qaatay oo ictikaafi jiray nebi maxamed gadaashii salawaatu rabbi wasalaamu calayh lama hayo isagoo ictikaafka ka tegey ramadaanka ilaa hal sano
ونبي صلى الله عليه وسلم انتم مساجد دحتي تندك دستي تنددي markuu hagaajistay ay Aisha idan weydiisay rasuulka Ilaahay idan anigana agtaada inaan mid ka dhisto waa uu idmay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi Hafsa waxay ku tiri Aisha anigana nabiga weydii way u weydiisay waa uu idmay iyaduna agtiisa ka dhisatay Zaynab baa ka war heshay markaas iyaduna agtooda ka dhisatay nabigu meeshii wuxuu ka soo baxay isagoo meeshan teendooyin dhooban yihiin mid xaq ka dhisan waa fahmay nabigu sallallahu alayhi wasallam al birra aradna nabigu sallallahu alayhi wasallam ma wanaag bay u jeedaan waa dumar isu masayrsan ma wanaag bay u jeedaan bay idin la tahay fujiya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam teendadayda fujiya waa ka tagay i'tikaafki ayaguna guryahoodii bay ku kala noqdeen hadiiba nabiga meeshii ka xay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi sanadkaasi waa ka tagay i'tikaafka 10 ka dambe laakiin muxuu sameeyay saakaga ma tagin 10 ka bariye bisha shawaal u horeyso ku badashay oo nabiga i'tikaafay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi saas daraadeed hatta haday duruuf muayana dhaafiso nabiga sallallahu alayhi wasallam waa soo bedelkeedu la iimaan jiray ahmiyada ay leedahay i'tikaafka iyo sunnadaasi qiimaha ay ku fadhido ayaad garanaysaa inuu nabigu si fudud uga tagi jirin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi bal waxa sugan sanadka uu geeriyoon doono nabigu sallallahu alayhi wasallam 20 bari buu i'tikaafay bedelkii 10 bari waxay tilmaamaysaa ruuxa markii daadiisu ay korodho oo xagga qabriga u sii dhawaado inuu amalka siyaadiyo oo wax ku daro oo intii hore uusan ku ekaynin وكان ربي تبارك وتعالى كل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه حالة على مدها سيمادان إلهي قول كسيو مكاءات فرطو دتك دينتا أي كوحكوحي أي قودة وصوغلان قبائل هل مرصوضة إسلامي مركاسي قيري دادي واسود وهذا ديار قرون محمد maxaan ku diyaar garooba tasbiixda iyo xamdiga iyo istighfaarta badi baa leeyahay